munaasabad ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar ayaa waxaa xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish kaas oo kala wareegay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadale ibraahim dheere oo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa siyahayaha duqa magaalada muqdisho. munaasabada xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya, wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, saraakiisha ciidamada qalabka sida, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland, gudoomiyaasha degmooyinka, gudoomiye ku-xigeenada gobolka iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaa sidoo kale madasha goobjoog ka ahaa dadweynaha u tiro badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaashii hore ee gobolka Banaadir. munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa ka hadlay madaxdii kala duwaneed ee kasoo qayb galay iyagoo kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cumar Filish inuu dardar geliyo howlaha kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho iyo sidii caasimadda loogu soo celin lahaa sidii ay bariismaadkii ahayd. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir oo xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cumar Filish waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu soo qabtay maamulka gobolka Banaadir. gudoomiye soo dhawow marlabaad iyo mar saddexaad waxaa ilaahay mahadiisa inaan markii aan u xaq sooray dadkii aan xukumanay haddana aan xafiday ammaanadii lagu ammaanay oo anigu mas'uulka aan ka ahaa. waxaan jeclahay gudoomiye inaan kugu wareejiyo document aan ka codsado inaad waqtigeeda qaaliga ah sidoo agtida timaadid si aan kugu wareejiyo mikrofoonka hadalka iyo documentigii oo ku sahlaya inaad si shaqayso. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo dhankiisa madasha ka hadlay waxa uu tilmaamay in maamulada Puntland iyo gobolka Banaadir uu ka dhaxeeyo iskaashi iyo wada shaqeyn aad u wanaagsan, isagoo dhan kala tilmaamay in labada maamul ay xoojin doonaan mashaariicda kala duwan ay iska kaashanayaan dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale gobolka Banaadir. insha Allah waxaan leeyahay ilaahay hadajiyo dalkeena guud ahaan gaar ahaan gobolkeena ama madaxeena oo caasimadda alla hadajiyo soo inuu wada fiyoobaano. gudoomiyaha waxaan leeyahay xilka Allah ku fududeeyo. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya oo madasha ka hadlay waxa uu tilmaamay in xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin garab istaaga iyo wada shaqeynta maamulka gobolka Banaadir. caasimadda dalka Soomaaliyeed Muqdisho ama gobolka Banaadir waa hooyadii Soomaaliya, waa calooshii dalka. haddii calooshu ay bad qabto jirka intiisa kale waa bad qabaa. mudane gudoomiye sidii raggii iga horreeyay iyo mas'uuliyiintii ay kula dardaarmeen waxaan kugula dardaarmaynaa anigoo matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaan si qalbadsami ah niyad wanaaga kula shaqayn doono. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo soo gunaanaday munaasabada waxa uu aad uga hadlay in maamulkiisa uu xoog saari doono dardargelinta sugidda amniga caasimadda iyo sidoo kale dib u furista wadooyinka xiran ee ku yaala caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo, shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas'uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. waxaan aaminsanahay amniga sugiddiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba, waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeena
kala shaqayn doono laamaha amniga. Waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho. dhanka kale duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Firish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu dardargelin doono arrimaha kala duwan ee lagu xoojinayo cadaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan hortiina caawa ka cadaynayaa intaan madax ka ahay magaaladan inaanan aqbali doonin intii awoodayda ah in cadaalad darro iyo dulmi qof Soomaali ah lagula kaco, in qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo Muslim ah uu qof kale oo Soomaali ah si bareer ah hantidiisa u haysto nuucay doonto ha ahaatee. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.